soo dhowaada saaxiibayaal mar kale maanta waxaynu ka hadli doonnaa waxa loo yaqaano conjunctive. haddaba conjunctifow maxaad ahayd? conjunctiveku waa xaalad aad kaga hadli karto ama uu qofku isticmaalo marka uu ka hadlayo wax aan weli dhicin ama riyadaada inaad ka sheekayso, ama maanta haddii lagu dhaa maxaad rabtaa mustaqbalka inaad noqoto oo kale, sidii aad mustaqbalka wixii aad noqon lahayd oo kale qaabkaad uga hadli lahayd ayuu ka sheekeeyaa conjunctiveku. haddaba conjunctiveka waxaa loo qaybiyaa laba. waxaa jira conjunctive ins iyo conjunctive sphy. conjunctive insku waxaa inta badan loo isticmaalaa waxa loo yaqaano indirect ride. haddii aan tusaale bal eegno intaynaan dhaafin, direct ride wuxuu noqon karaa ich bin müde. indirectna wuxuu noqon karaa er sagt er sei müde. conjunctive sphyga oo ah kanaynu maanta ka hadli doono, conjunctive sphyga waxaynu ku cabiri doonaa ama markaad ka hadlayso riyadaada, ama markaad ka hadlayso waxaad rabto, ama markaad ka hadlayso mustaqbalkaaga ama noloshaada dambe say u ekaan doonto, ayuu ka hadli doonaa conjunctive sphygu. marmarka qaarkood ma istiraahdaa luuqadda soomaaligu adaga markaad waxyaabaha qaarkood inaad rabto inaad ku sheegto. aynu kasii gudubno, aynu eegno tusaalahan koowaad ee conjunctive sphyga. wenn ich Zeit hätte würde ich reisen. haddii aan waqti hayn lahaa waan dalxiisi lahaa ama waan safri lahaa. aynu eegno tusaalahan labaadna, ich wäre gern reich. waxaan jeclaan lahaa inaan taajir noqdo. konntest du mir bitte helfen? ma i caawin kartaa fadlan adigoo mudan? haddaba conjunctive sphyga si ayaad ku garanaysaa inuu conjunctive sphy yahay jumladani. conjunctive sphyga inta badan waxaa lagu gartaa wuxuu wataa umlaut sida würde iyo hätte. haddaba aynu dul istaagno conjunctive sphy markaynu ka hadlayno by wünschen iyo und träumen. haddaba markaad dhisayso jumladaha ku saabsan wixii aad jeclaan lahayd inaad ka hadasho kale, waxaad isticmaali kartaa wenn iyo plus conjunctivekeenii, ama waxaad isticmaali kartaa ich wünschte. aynu eegno bal tusaalayaashan soo socda, waxay ku saabsan yihiin wunsch mit wäre ama hätte ama konnte ama würde. aynu eegno tusaalayaashan haddaba. realität, ich bin nicht reich. taajir ma tihid, laakiin haddii aad jeclaan lahayd waxaad odhanaysaa conjunctive sphyga ich wünschte ich wäre reich. waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo taajir. ich habe kein Haus. ma lihi guri. laakiin haddii aad rabto inaad guri lahaan lahayd waxaad odhan kartaa conjunctive sphyga ich hätte gern ein Haus. shimbir matiida ma duuli kartid, laakiin haddii aad jeclaan lahayd inaad duusho waxaad odhan kartaa conjunctive sphyga ich konnte fliegen wenn ich Superkräfte hätte. waan jeclaan lahaa haddii aan awoodo cajiiba lahaan lahaa inaan duulo, waan jeclaan lahaa. ich arbeite so viel. wax badan ayaan shaqeeyaa. haddii aad rabto inaad conjunctive sphy aad ka hadashid, ich würde lieber am Strand liegen. waxaan jeclaan lahaa inaan xeebta iska jiifo maadaamuun in badan shaqeeyo oo shaqadaba u gooyo. haddaba markaynu ka hadlayno riyooyinkeenna iyo waxyaabaha aan suurtagalka ahayn ee dhici karinna sidee ayay u eg yihiin. aynu eegna jumladahan soo socda. wenn ich ein Vogel wäre würde ich die Welt fliegen. haddii aan shimbir noqon lahaa adduunka ayaan kusoo wareegi lahaa. wax suurtagala maaha, waa iska riyo ama waa wax aan dhici karin. tusaalaha labaad, wenn ich mehr Zeit hätte würde ich ein Buch schreiben. haddii aan waqti hayn lahaa buug ayaan qori lahaa. imika waad qori kartaa kolley, qof aan waqti hayn ma jiro. so waa wax aad adigu iska niyeysanaysid oo kale, wax jira maaha. ich wünschte du wärst hier. waxaan jeclaan lahaa inaad halkan joogto. ich träumte ich könnte säubern. jumlada u dambaysaana waxay odhanaysaa ich träumte ich konnte säubern. macnaheedu waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa inaan wax sixri karo oo wax taagi karo. haddii aan isku soo koobno, conjunctive sphyga waxaad u isticmaali kartaa kow wünsche, waxyaabaad jeceshahay. tusaale ahaan ich wünschte ich hätte mehr Zeit. laba waxaad u isticmaali kartaa oo kale träume, riyooyinkaaga iyo waxyaabaha malaawaalka ah. tusaale ahaan wenn ich fliegen konnte würde ich die Welt reisen. saddex waxaad u isticmaali kartaa oo kale höflichkeit, waxyaabaha ixtiraamka ah. tusaale ahaan konntest du mir bitte helfen? fadlan ma i caawin kartaa?
afar waxaad u isticmaali kartaa oo kale raadsleyge ammoglichkeiten talooyinka iyo tusaale ahaan an deiner Stelle würde ich das nicht tun haddii aan booskaaga uu ku jiri lahaa saasi ma sameeyeen waxaan rajaynayaa inaad fahanteen haddii aad fahantay haddii aadan waxba ka fahmin fadlan commentiga nagula wadaag maxaad jeclaan lahaydeen kale casharo noociya ayaan ka soo hadlalnaa ama maxaa ku xigsiya kan haddii aad haysaan commentiga igu raab isagana waa mahadsantihiin bye bye